aayaddaas halkaa ku jirtaad ka bilaabaysaa insha allahu tacaala halkaasaa marka haye bilow. إن الذين haa marka hore waa lagu reebayaa, marka xigtana waa la kordhigayaa, soo saa maahayn? haye ina aladiina haye فرقوا haa si fiican haye فرقوا دينه si fiican haye diinahum haye وكانوا si fiican haye wad شيعا si fiican, laakiin haddii shadkaasi uu jiro isku sii dar, sii wad شيعا haye شيعا لست haye منهم haye في شيء haye sababta haddaba alifkaa yare ugu dambeeya halkaa shay horta alifkaa ugu dambeeya maxaa qaabkee lagu dhawaaqa ka ugu dambeeya ك shacdata kusii xiga alifka ugu dambeeya ama si waa ku calaamadiyo waa calaamadin karaaye يا kaayar maxaa lagu dhawaaqa ماشي إنها إن kaa maxaa ugu dhawaaqa شيء okay hadda shardiga waa waxa weeyaan haddii uu leeyahay waxaan yare halkan waxaan maxaa kugu tilmaamay taa maxaan kugu sheegay kaa sare kaa yare jim kaa yare sare jimka sare maxaan kugu tilmaamay haddaa aragtid jimka maxaa la samayn jiray إلا okay haddaan ku xasuusinayaa jimkaasi waa lagu istaagi jiray meesha, marka alifkaa yar hadda la akri maayo fi shay waa la dhahayaa alifkaa yar lama akrinaya hadda, waayo aayadda qur-aanka markaad akriyaysid oo aad jimka aragtid shay halkaa waa lagu istaagayaa, marka fi shay baa la dhahayaa. alifkaa yar markaa inta badan lama akriyo, haddii waad garanaysaa alif wax walba oo ugu dambeeya waa la reebaa soo maaha markaad istaagaysid. wax kasta oo markaad istaagaysid waa la reebaya meesha ugu dambeysa, marka alifkaas oo kale markaad reebtid alif la reebay dee lama inta badan lamaba ma muuqsami jirin ama ma muuqan jirin, marka alifkaas waa laga tegi jiray. hadda laakiin taasaan ku xasuusinayay haddii aadan yani aanad garanayn. haddana iska sii wad haye fi shay haye maxaa kusii xiga إنما haye إنما أمره haye wali sii wad waa isla sii socotaa هم isku aayad intaasoo dhan isku dar yacnihi intaasoo kale isku dhawaaq إنما أمرهم haye إلا الله si fiican ila allahi haye شعاع وقاله shucaac yar baa kaa galay miyaa okay haye aan eego inuu shucaac ka baxo haye so waa soo dhaweey waa soo intaa ku soo dhaweynayaa maadaama ay yar yihiin inta hadhay. haye ثم haye ينبئون بهم bi haye هم
wax kale ka horeeya humta haddaan ku calaamadiyo waa kana ka horeeya isna bi'uhum haa haddaba intan yar si ay u qurux badnaato intan yar waa in la isku soo qabtaa thumma haye thumma haye yunabbi'uhum maasha allah haye yunabbi'uhum haye bima sax haye haye kaanuu haye haye yafcaluuna hadday ugu dambayso maxaan samayn jirnay yafcaluun si fiican yafcaluun waa reebeynaa ka ugu dambeeya okay haddii aan isku dayno aayaddii waa tan aayaddu waa yara adag tahay suuraddu waa suuratu ancaam weeyaan waa jiska 8aad baan dhihi karnaa ee suuradaha marka aayaddaasi waxa weeyaan waa taasi aayaddii aan hadda aan ku tartanay ama waxaan leenahay akrinay tartan yaan dhihine ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta haddii ay sidaas oo kale u yara qarsoon tahay midabadu midabka saas qaabkaas qarsoon yahay waa laga boodi jiray soo ma markaa shiyacan lasta saas kale ugu dhawaaqaysaa haye shiyacan lasta minhum fi shay haye inamaa amruhum ila allah ama ila allahi thumma yunabbi'uhum bima kaanuu yafcaluun soo ma artid saas oo kale weeyaan marka aayad kastaba qaabkaasaad u eegeysaa wax walba saasaad yacnihi uga qeyb baalkeynaysaa